barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Xaaji Xasan Cali iyo wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibrahim Aadan Qabyad Tire ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay cirbiyood laga hirgelin doono magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd kaasi oo faa'iido weyn u yeelan doona bulshada ku dhaqan guud ahaanba deegaanada kala duwan ee gobolka Hawd. waxa halkan la dhagax dhigayaa ceelkii wasaaradda biyaha wasiirka wasaaradda biyuhu hormoodka ka yey in lagu dhagax dhigo ceelkii ugu horeeyay aanu filayna insha Allah biidnillah inuu biyo soo saaro ceelka magaciisina hore inuu soo bixinay waanu ku soo ducaynay waxaanu markaa halkan isugu nimid dhagax dhigiisii mana noqonayo waa bilow dhammaad ma noqonayo insha Allah biidnillah kana waa laga heli doonaa qaar kale fara badanna waynu ka heli doonaa insha Allah Balligubadle iyo gobolka Hawd waa meel taariikh ku leh oo ku suntan Somaliland in rigi koowaad ee gobolka Hawd laga qodi doono insha Allah iyadoo nasiib uu helay walaalkay Xuseen Cabdi Boos wasiirka biyaha in reer Balligubadlena maadaama in badan ama baahida koowaad ay leeyihiin ay ahayd biyaha ay ku xusi doonaan waxaanu rajaynaynaa inuu Ilaahay halkan uu biyo ka soo saaro lagu baahi baxo wasiirkana Ilaahay ma uga dhago madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waan uga mahad celinaa runtii mashruucan iyo mashaariicda kale gobolka lagu horumarinayo wadamada ka riixayo aad baan uga mahad celinaynaa wasiir ku soo dhawow waxaanu hadda halkan u taaganahay in idanka Ilaahay iyo ducada iyo baahida taagan Ilaahay uu nagu guuleeyo geesta kale waftigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos ee maanta soo gaadhay magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa waxa xubna ka ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Aadan Ibrahim Qabyad Tire wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Qadar Xaaji Yuusuf wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Liibaan Yuusuf Cismaan barasaabka gobolka Maroodijeex agaasimaha guud ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska siyaasiyiin iyo xubna ka socday xisbiga xaakimka kulmiye mas'uuliyiintani waxayna xarunta madaxtooyada gobolka Hawd ay kulan kula yeesheen odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hawd bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle iyo guud ahaanba gobolka Hawd ayaa si kal iyo laaba u soo dhaweeyay mas'uuliyiintii kala duwana ee madashaasi ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd uga mahadnaqay sida mugale ay u soo dhaweeyeen waxaan filaynaa in ceelbiyoodka aynu imika helay soo dhaweysaan kuwa dambana insha Allah taala way ku xigi doonaan waxay ku xidhnaan doontaa sida aynu wasiirka iyo xukuumadaba ula shaqeyno hadii alla ka dhigo xukuumadan madaxweynaha uu ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxay ku leedahay laba taariikhood taariikhi waa taa hore uu fadhiyi jiray xaruntii uu fadhiyi jiray talabaadna 2010kii markii halkan ololaha lagu jiray wacdariha ay dhigtay waa la garanayaa waxaanu aaminsanahay oo aanu ognahay in aad mid iyo laba iyo saddex iyo afarba aad keeni doonto insha Allah taala sidaanu imika kaaga baranayno kaaga aragnay kii u horeeyay ballanqaadkaagii degdeg ahayd oo fisay Ilaahay kugu astro xilkana Allah ku fududeeyo dhamaanteena Allah inoo wada fududeeyo anagoo isku duuban idinkaan idin shaqeynay gidaarka sano waan taagnayn meel waloo aan deegaanka wax uga raadinayna waan uga raadinaynay in biyahaas waa ugu horeeyaan reer Balligubadle waxa looga baahay in roolkooda inay qaataan waxaynu isku ogaanaynaa annagana wixii baahiyo nooga jirtaan hadday wax qaldanaan jireen hadday wax tabayseen waa sheeganaysaan ma noqonayno wasiirra maalintay dan leeyihiin idin yimaada waxaanu idin iman doonaa in badan baan ku soo noqon doonaa waanu xisaabtami intaanu maalin idin nimaadna noqon mayno habeen iyo lababa jilbahaynu isdhigaynaa aniga ay tahay farxad walaaran bay tahay in badan baan maqlayay Balligubadle maanta ayaan hadaan anigoo nabad qaba aan imi waxaan leeyahay aad bay farxad weyn igu tahay xukuumaddu inay caloosha iyo niyadaba idinku haysay ayaan idin sheegay anigu hadda ku faani maayo anaa keligay baa waxaan leh keligay baa idin gartay aniguna waa ku jiray intaasoo qorshayaal ah oo ay wasiirada ila socday ay gula socdaan biyihii way bilaamaya Ilaahay idinkii wasiirku rigan hadda uu inoo wada maanta
markii la magacaabay dadaal hore fara badan baanu wadnay dadaalkii hore fara badan aanu wadnay ayuu runtii soo dhaweeyay isagu waa ognahay waxaan rajeynayaa biyaha inaynu marka dhargi doono ilaahay idankii ayaan aad iyo aad u rajeynayaa maxamed jiciiro axmed iyo axmed maxamed cawaale TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Balli Gubadle.